gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya haddii aynu dib ugu noqono dadka ku nool deegaanka kulan ee hoostaga degmada Dadaab ee ismaamulka Gaarisa ayaa eedeyn xoogan waxa ay u jeediyeen hay'adda bisha cas ee dalkani Kenya oo ay ku eedeeyeen in lacag ugu soo dhiibay banka adduunku ay meel dhexe kala dustay oo aanayba soo gaarsiin waxaana ay sheegeen in wixii loogu talagalay in lacagtaasi lagu qabto bataatanba lala hareer maray oo aanay jirin wax dadka deegaanka loo qabtay warbixin arinta ku saabsan waxa ay noo haya wariyahana Cabdiraxmaan Khaliif shacabka ku dhaqan tuulada kulan ayaa waxay ka cabanayaan hay'adda bisha cas ee dalkan Kenya oo ay ku eedeynayaan inay maasuqday lacag lagu talagalay inay wax ugu qabato gaar ahaan ceelal iyo beero ee ugu hagaajiso dadkan ayaa waxa ay sheegeen in bangiga adduunka uu lacag gaarayso 100 milyan shilinka Kenya uu siiyay hay'adan si ay wax ugu qabato dadka ku nool kulan ee degmada Dadaab balse waxay sheegeen in waxa ka soo gaaray ay yar yihiin. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan idin sheegaynaa oo ka cabanaynaa hay'adda la yiraahdo Red Cross Kenya Red Cross ayaan ka cabanaynaa taasoo ah dhibaatada ay noo keeneen intayna noo imanna aan ka haysanay faa'iido aan noo haysanay ayaan ka cabanaynaa oon u sheegaynaa dawladda Kenya iyo IGAD iyo World Bank bangiga adduunka sababtoo ah waxa weeye dhibaatada ay noo keeneen intaasan uga sheeganaynaa iyo waxay noo qabteen waxa weeye ceelka ay dureen ay qodeen iyo taangigaas iyo baybinkaas oo bayb yar habaha yar-yarka la saaray wixiina wax faa'iido ah oo ka soo baxay aan la haynin lacagta meesha lagu qaatayna ay tahay 100 milyan wax faa'iido oo naloogu soo dhiibay Red Cross meesha wax dadka wax ugu qabta la yiri maalin walbana intay noo imaadaan oo sawirka telefoon mobile number kibandada lambarkeeda ay naga qoraan oo ay dhahaan waan simina ay dhahaan walina aanan waxba ka arag xaqiiqadii markaan idin sheego sida awgeed waxaan rabnaa annaga Red Cross horta bal inay nasiiso maktanadii khasaarihi naga gaaray meeshaas inay nasiiso adduun weynuhuna uu nala qabto oo uu arko ilaa arkaan rabnaa oo imaadaan dhibkana haysta adduun weynuhu inuu arkaa dawladda Kenya inay timaado way aragto baahidanada iyo dhibkana haysta iyo Red Cross sida noogu cagta noogu qabatay in ay la arko oo Kenya anagu dawladda Kenya hoos joognaa dawladda Kenya dadkeedii baana inay noo timaadaan rabnaa oo noo aragto dhibaatadana haysata iyo hay'adda noo timid ee tiri waxbaan idin qabanaynaa waxbana noo qabanin baldooski aan ku noolayna waka waad aragtaan bilaantiisa waad aragtaan Kenya waxaan ka codsanaynaa ana korta khasaaro badan bay noo geysteen oo fara badan ceel bay noo sureen taangi ay noo saareen haamba maxaa dhigi jiray yar ay noo saareen oo waxa uu waraabinay beebay haddana cunaha nagu sii qabteen oo silacay saxar beeri siday taan u falnay siday taan shaqaalo u gelinay waxay too lacag oo dhan baan gelinay wixii wax noo soo celiwaan waayna hadda saxar meesha ku saxarsan anaka ku saxarsan wax meesha noo yaalana ma jirto wax maxaa la dhihi jiray oo faa'iido aan ku haysanana ma laha wixii lacagtii oo soo baxdo oo maxaa la dhihi jiray walbanka adduun walbaan ka cusanaynana oo noo soo baxdo 100 milyan ahna ayakum baa maxaa la dhihi jiray oo faa'iido ay noogu qaban lahayd faa'iido noogu qabteen ma laha yaan maanta ka cabanaynaa waxaan kaga cabanaynaa waxay noo qabteen iyo waxay noqon weydayba oo kamid ah wakow waxay noo qodeen ceel waxay noo dhiseen taangi waxay daba dhigeen taangiyaal oo yar taangiyaasha yar-yarka ahaa waa sidii ayna dhahan way ku shaqeyn waayeen waxaan lagu maqaalaa inay lacag saa'id u badan oo 100 milyan 200 milyan ay ku qaateen 100 milyan saan uga sugaynay macal dawladda Kenya ay noogu soo dhiibtay iyo World Bank way socon weeyeen hase ahaatee Red Cross ayaa sheegtay in lacagtan ay ku qarash gareeyeen beeraha oo hadda laga helo qara iyo khudradda kale ee cagaaran ma ahan markii uu horeysay hay'adan lagu eedeeyo masuq iyo wax qabad la'aan we are also giving them the
We are also giving the seedlings for the grass seedlings, grass seeds for them. We are building up on food security. What Kenya Red Cross is doing that currently in Kulan is that yes, watermelon, these fruits can be grown in the interior of the desert. Two, a pastoralist has the option of pastoralism, which is fading away, and farming. The acreage that we are doing here is 20 acres, a quarter acre for each farmer, for the 203 farmers, under drip irrigation. One is, the other thing is that we are using a new technology. They water their animals in the farm. In the main town, we have a borehole constructed and piped, and even all the storage facility were done by Kenya Red Cross, and they're going to water their animals there. Going to reduce also the movement of community from one area to another. For example, during the dry spell, our community, they shift from here to Wajir South, they shift from here to Isiolo South, and also part of Somalia, the lower Juba. Abdurrahman Khalif, RTN, Nairobi.